siyaasadda ku soo noqnoqotay ee isqabashada badan ee ku soo noqnoqotay ama khilaafka yar ku soo noqday Soomaaliland oo bariga hore waqti yar oo gaaban lagu xalili jiray laakiin aad moodo hadda waqtiyada dambe inuu xoogaa si yar daba dheeraanayo taas ayaa markaa waxaan maansayar halkan uga dirayaa oo ah wacyigelin ama wax sheeg in dadku is qabtaan dadkii wax ka dhaxayaan ama siyaasadda noqoto ama wada shaqeyn ha noqoto uu yimaado khilaaf oo khilaaf lagama waayo adduunka laakiin waqti dee ayaa lagu xalilaa oo lagu dhamayaa ama ha noqoto maxay ahayd wada hadal dhexdooda ama dad kale oo dee u yimaado isla magaranaysa danaynaya waxaan marka hore ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim marka xigta heestu waxay ka bilaabanaysaa ama maansadu qabanqaabo taladiyo qorshii ummad dhex yaala khilaafaadka keeno qof xaajada la tuurlaa qofka kale la toosane qabanqaabo taladiyo qorshii ummad dhex yaala khilaafaadka keeno qof xaajada la tuurlaa qofka kale la toosane kala qaybsanaantiyo qabyo waxay dhamaataa kala qaybsanaantiyo qabyo waxay dhamaataa markii qalad kastoo dhaca la isugu dulqaato qumanaan wanaag iyo qormo lagu heshiiye distoorkaynu qoraniyo qaynuunku inoo yiil distoorkaynu qoraniyo qaynuunku inoo yiil idinkuna qadariyo dhowra qiimihiisii qarankeena sharafta leh dhowra qiimihiisii qarankeena sharafta leh quruumaa adduunkiyo qoon kastoo arlada jira dadku way isqabtaayo qabsoo labada daan iyo carab isqaniine quruumaa adduunkiyo qoon kastoo arlada jira dadku way isqabtaayo qabsoo labada daan iyo carab isqaniine arrinkii qalloocdiyo qorshe wuxuu hagaagaa arrinkii qalloocdiyo qorshe wuxuu hagaagaa markii qiil kastoo jira la iska wada qancinayo markii qiil kastoo jira la iska wada qancinayo qaraar lagu midoobiyo go'aan qura la qaatee qaraar lagu midoobiyo go'aan qura la qaatee distoorkaynu qoraniyo qaynuunkii inoo yiil idinkuna qadariyo dhowra qiimihiisii qarankeena sharafta leh shacabkayga taas waxay tii aan siyaasiyiinta kula hadlayay tii shacabka in yar baan halka uga marinayaa oo kooban anigu aan dhammaystirayn way dheer tahay laakiin in yaroo kooban baan usoo qaadaya waxaan leeyahay shacabkayga intaasaa ku filan baan u maraya markaan intaa usoo gudbiyo niyad la isku raaciyo isku duubnidaa nabad nigi lagu helaa iyo nimco iyo barwaaqe nasrigaan sugayniyo nuur baynoo iftiimo gaadhnayno xurkan aayaha wada naawilayne noqda dadkaygow noqda kuwii dadkaygow naxli gala dhexdiiniyo nusqaanta iska dhowro nacabka iska kaashada dadkayga waxaan leeyahay hawlu waa farbadayin wax walba waa la socotaan maanta cid wax loo sheegayaa ma jirto siyaasi iyo siyaasiyiin way soo wada qabanayaan waa la wada hadlayaa laakiin shacabka midnimadoodii iyo wadaniyadoodii iyo midnimadoodii iyagu inay ilaashadaan baa fiican oo aan daldalool looga soo duso aan laga helin taasaan iyagana ku gubaabinayaa aad iyo aadna waa u mahadsantihiin waana idin jeclahay heesa kalena waan idin soo diray iyo maansooyin kale